يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي وأنا إذن سلامي كسو دوادا هورمري مطبخاga janal أصحابي maanta waxaan isla karinaynaa quraac aad iyo aad u fudud maasha Allah oon isleeyahay qofna cajsi gelin mayso qof walba seeroo aad u fudud ayuu u sameysanayaa insha Allah waxaan rajeynayaa inay ina anfici doonto aan isla eegno sida aan u sameynayno. Asxaabey halkan waxaa inoogu jira 4 koob oo daqiiqa 2 baroon iyo 2 white ah waxaan ku daray mulqaacad yar oo milix ah waxaan ku daray 2 mulqaacadood oo sonkor ah iyo mulqaacad yar oo yiis ah waxaan ku darayaa biyo diiran oo aan ku qasayo waan qasayaa qooshka mashiinkan aan ku qasayaa aad arkaysaan si ilaa inta uu qooshku ii fiicnaanayo. Asxaabey qooshku waa ii fiicnaaday si fiican ayuu igu qasmay qawaamkiisana waa idinka arkaya waa sidaas aad buu u fiican yahay. insha Allah waan dabooleynaa ilaa inta uu inoo soo faxayo asxaabey qooshkeeni waa inoo soo faxay maasha Allah maxay bahashan birdaawiina dabkaan inoo saaray wuu inoo kululaatay waa tastay laxooxdeen saas ugu shubaynaa sidii caadadeenoo ahayd Soomaaliya laxoox maxaa kala haysta lama kala waayo soo maaha laxoox la'aan waa abaar daawi saas bay uga kacaysaa laxooxdii maasha Allah quruxdeedana waa idinka arkaya indhaheedii badnaa wataa inagu soo eegaysa asxaabey saas ayaa laxooxdii ku dhameeyey maasha Allah saas bay ku soo baxday quruxdeeda waa idinka arka dhadhankeedana maasha Allah anaa idin og dagaas iyo waxaasna ma laho waa tiimkuna aynu qooshnay 30 daqiiqo inoogu soo faxday maasha Allah hadda maqligii ayaan dabka soo saaranay waxaan ku darayaa in yar oo saliid ah ayaan ku shubayaa waxaan kusoo daadiyay in yar oo basal aan soo duuduubay ah basashii iyo saliidii ayaan isku yar dhex walaaqayaa dabkuna waa ku shidan yahay si ay iskugu soo yar shawaxaan oo isugu shiilmaan markii saliidii iyo ay isku soo shiilmeen basashii asxaabey waxaan ku daraynaa hilibkii ama jiidh aan soo yareeyay jiidhku wuu bisil yahay mar horaan kariyay aad iyo aadna waan u soo jilciyay dabeetana intaas markaan saa isku yar walwalaaqo waxaan sameynaynaa daboolkan yar saaraynaa si isugu soo yar huurto intaasna intii markay isku soo huurtay kaaroogi ayaan ku darsanaynaa kaarooga saa yar dhuudhuuban ayaan usoo jarjaray qofku si balbalaaran iyo si gaagaaban iyo siduu doonaba u jarjari karaa iyo dhaseen uu rabo toon yar ayaan ku daray intii baan isku soo huurinaya haddana intii markay isku yar shawaxday waxaan kusoo daraynaa barbaroonigii qofkii rabaa qaji yar wuu raacsan karaa laakiin qaji anigu kuma darin hadda laakiin qofkii doonaya kuleelka jecel wuu ku dari karaa barbarooniga waxaan jeedaa qajiga wuu iskaga darsan karaa marka intaasna isku yar dhex geliyo waan isla yar dabooleynaa haddana markii isla soo shawaxdo oo taas saas soo baxday waxaan ku darayaa in yar oo basal oo aan markii hore u reebay basasha iyo intaa yar markaan saa iskugu yar rogo waxaan kusoo darayaa insha Allah xawaashiyadii ayaan kusoo darayaa xawaashiyadu waa calaa qof walba wuxuu rabo ku darsanayaa hadduu doono qofka aan rabin wuu iska badalinayaa ani toon yar iyo kurkum yar iyo in yaroo sinjibiil ayaan ku daray marka intaasna aan isku yar rogrogo waxaan kusoo daray 2 mulqaacadood oo yogurt ah asxaabey yogurtka waxa kaga fiican ciirtii dhiisha lagu luleeyay wadankeenii ayaa aad iyo aad ugaga fiican isticmaala ciirta iminka saan xitaa u walaaqayo maaragtaa uma walaaqeen soo ma arkaysaan saan u walaaqayo waayo yogurtkii baa isku dhigsanoo dabna kuma shidno dabka waan ka baktiyey marka yogurtkii waa isku dhigsanoo waa inaan mulqaacadii ku kala furfuro haddaan ciirta haysan lahaa kuma dareen yogurtka marka waxaad isticmaashaan ciirtii wadankeena aadka u macaaneyd maasha Allah asxaabi markaan intaas isku walaaqay waxaan ku daray xabub yar oo aan soo jarjaray saas ayay iigu soo baxday quraacdeeni maasha Allah quruxda
sharaab waxaan ka dhiganaynaa karkadeey. Shaah baa kusii fiican laakiin jawiga aad noogu kulul. Quraacda mar haddii 10 iyo maaragtay 11 iyo meelahaas soo gaadho shaah lama cabi karo halkan. Markaas karkadeey ayaan cabitaan ka dhigay. Saas ayay laxooxdeynii iyo wixii lagu cunaayay iyo sharaabkii lagu cabaayayba inoogu dhammaystiran yihiin. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan ka wada faa'iideysanay. Aadna ay idinku fududahay oo aanay ahayn wax culus. Maasha Allah. Waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ammaano Allah iyo casharo dambe oo xiiso leh. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.